Zariibada Albarako ayaa laga hirgeliyay xaafadda Sheekh Muuse Ducaale gaar ahaan buurta kala jeexan waxaana zariibadani xadhiga ka jaray maayar ku-xigeenka caasimadda zariibadan oo baahi weyn ay u qabeen dadka ku dhaqan xaafadaasi goobtani xadhiga lagaga jaray zariibada cusub waxa ka hadlay xildhibaano iyo mas'uuliyiinta zariibada oo sharaxaad ka bixiyay qaybaha ay ka kooban tahay zariibadani cusub iyagoo sheegay inay leedahay 15 qol iyo 32 boos xildhibaanada ayaa iyaguna waxay u mahad celiyeen Yuusuf Xuseen oo ah ganacsadaha dhisay zariibadani waa meel nadiifa waa meel laga aad looga shaqeeyay waa guriyo dhisan oo had leh qaarna waxa weeyaan meel meherada noqon kara xogayaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa Mawlid Wiris Cabdullaahi oo madashani ka hadlay ayaa sheegay in zariibadani wax ka tari doonto baahiyaha xaafadda ee dhinaca ganacsiga sidoo kalena waxa uu sheegay in zariibadani ay ku taalo goob muhiim ah furo waayo anaga siyaasadda dawladda hoose ay ka mid tahay in zariibado ay magaaladu hesho marka cid kasta oo ganacsada ka mid ah oo la timaada horumarka caynkaas oo kala waan dhiirigelinaynaa waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo xadhiga ka jaray zariibadani ayaa kula dardaarmay shacabka xaafadani ku dhaqan inay ka faa'iideystaan ganacsatadana u soo jeediyay inay ku daydaan ganacsadaha isagu gartay inuu zariibadani mujtamaca u dhiso ama suuqan cusub uu yeelanayo xaafadan Sheekh Muuse Ducaale ama buurta kala jeexan waxa aanu habi ku nahay aanu proud ku nahay in ay dadku soo baxaan in suuqa cidhiidhiga laga saaro in magaalada jaamkan laga saaro oo magaalada hareeraheeda sida uu xoogiyuba sheegay laga sameeyo suuqiyo waxa aan ugu bishaareynayaa dadka bacadka yaala ama meelaha aan haboonayn ku ganacsanaya in ay zariibadan ku ganacsadaan hadii Ilaahayda gabagabadii maayar ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ku wehelinayay waxay kormeer ku soo mareen zariibada Albarako